baan leeyahay. Ya. Uur baan leeyahay. Yaad leedahay. Adiga. Anu maana dhalada. Ya. Maana dhaladooda. Walaal qamar sidaan yaaminkii dhawad walaal waa qaldanay waan isoo baad cadid u baniska waay uur baan leedahay badhigeeyay. maxaa kuu diiday inaad dhashid yaase kugu idhi ma dhashid dawadeed qaadatay miyaad ismudday miyaad isnadhay waar dhal lagugu dhufayo waa dhal iyo dhal laguu dhal qamarow laguu dhal haddaanan adigu dhalin waa laguu dhalay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان دين هيا ورلا يابله او امكاغله انغو يابنا يما يابتين فجعيا ياب وحان دين هيا عاوة نيري مدلو هرانا وما دارين ديبنا وما دالا وانا نسمدي انونا شيغي واي ميل او كو دالي iyo meel uuna ku dhalin iyo in ismilay hadaba caawa waxa dabka saaran nin la oranayay master qamarna anigu dumarkaan u yaqaanay qamar dheer qamar gaabo qamar indho biijo qamar wuxuu leeyahay yaa yidhi maan dhalin yaa wuxuu naf bay hayso waan dhalay habeenkii waan qaldamay hadaba waa ayaa ninkaasi waa nin la oran jiray qamar suudaan mise waa suugaan nin suugaan sheegtay iyo nin inoo ah inaga fanaan in uu iraado anigu ma dhalin hablaha marka la faraxumeeyo waxa weeyi adeerayaal caawa ninkaas dabka inoo saaran sheerta leegta subscribe ku qabo okay waanu yaabanahay baryihii ugu dambeeyay waxa isa soo tarayay fanaan arday ka dida fanaan ciyaartooy ka dida fanaan aan wala dilay la yiri iyo waxyaabo kale oo la halmaala annagu yaabnay idikuma yaabteen ama kaag iyo yaab baabaryahan ugu dambaysa social media iyo baraha wax lagu qoro ka wax lagu akhriyo dhex wareegaya walaalayaal waxa weeyaan waxa jira fanaaniinta kamida ka heesa Hargeysa ama se magac iyo muuqoogaba la yaqaan fanaankaas waxa uu yahay yar la yiraahdo qamar indho hadaba qamar indho biijo muxuu sameeyay qamar indho biijo waxa uu sameeyay isagoo safar ku jira cirkiya dhulka dhexdooda gaari maxawil ku fuulay boorama sii mari doona jigjiga ku u bixi doona inay soo qaraacday inan kamida hablihii berigii dhaweyd lagu bacdufay hadaba maxay leeyihiin intaynaan gelin habeen berigii dhaweyd wixii lagu sameeyay bal ila yara dhageyso qamar suudaano qamar indho iyo gabadh hablaha kamida oo la hadlaysa bal maxay isweydaarsanayaan samaxa ka jira marhumba mariya madalateedba bal ila yara dhageyso anu maana dhalada Ya. maana dhaladooda walaal qamar sidaan yaaminkii dhawad walaal waa qaldanay waan isoo baad cadid u baniska okay sidaad arkaysaanba inan baa soo garaacday ama soo wacday waxay ku tiri hello qamarow ma wacan tahayo xaaladii baa la iska yaro wareystay adigu uu wareysto huunno hani buu yiri hani hadaba hani maxay wadaa hani waxay wadaa taambuug laga dul dhisay uu ka dul dhisay qamar indho waxa ay ku tiri maalintii dhaweyd waan qaldamay ilaahay baan qaldamin shaydaan baa iga adeegtay arrinkii aad ogeyd waxa uu isku bedelay ilmo indha buluugale oo sidaadoo kale indha biijo okay uu ka guray sheekadii inantii waxa ay ku tiri walaalkayow xaamilaanahay 2 bilood waxa uu yiri maana ma dhala ya kamay dhageysan maana dhalay hadaa yaa ku shubay lagugu dhufay maanaga ku shubnay maanaga bluetooth ka u daarnay okay maba dhala buu yiri bari dhaweedu guursaday qamar waxaan leeyahay ma adigaan dhalin ma iyadaan dhalin miyaa lagu dhalay
adeeroy waxaad wadaa waa dhalanteen inantan dad baa dhalay waxani waa reality waa wax jira wax la sameynaya maaha haddaba waxa weeye arrinka taagani qamarow noomaad sheegin adig iyo kooxdaada imisaan dhalin noomaad sheegin halkii lagugu muday noomaad sheegin inaanad abidkaaga dhali jirin laakiin yarta miskiinta eed ku qaladay heesaa ubaxa leef eed aad qaladay eed beer laxawsatay eed laxankii fooljarigii aad u saartay ee isku kaa dhiibtay ee ku aamintay adiga oo nooha u fuulay boorama ree boorama dee kuma oga inaanad dhalin jijigadaad seexan doontid umaad ogeysiinin dhakhtar warqad caafimaad kama haysatid dawada dhalmada joojisaana halkaad joogtid maba taallo iska hadle yar baad guursatay fanaanada may kula og tahay inaanad dhalin dee midda labaad inantaa waxaa lagaaga fadhiyaa adeerow inaad wanaajisatid inaad ilmahaa kugu soo kordhay haddii aad awal ismoodi jirtay inaanad dhalin ku indhahaagoo kalele baa yimiday oo waxay yimiday ninkaa yar ee joof iyo johoradale indha biijay kuu eeg waxa weeye waxani dhalanteed maaha waa reality qamar suugaaniyo heesaha suugaani baad sheegatay afkuna inagoo suugaanta barayna oo adiga kaa tixraacayna in aad kuwaad u heesaysaan intaad sidaa doontaad ka yeeshaan hadhow tolana ubaxa sanka mari ubaxa urso had u soo qaataan iskaga qiiraysiisaan adeerayaal cadaalad maaha haddaad fanaaniintihiinna dee adeer yaad u haystaani waa annaga waa shacabka waa maatida kuwaad wax ku tihiinna waa annaga waxa weeye inaad xabad xabad aad u abayuustaan inaad xabad xabad waxaad doontaan uga yeeshaan inaad masaakiinta qaladaan inaad helitaan buug intaad ka duldhistid aad gaari raacdid wax laga aqbalaya maaha wax la yeelaya maaha meeshana waad ku soo noqonaysaa helina way kuu taallaya taambuuggeygii adeero inaad inantaa wanaajisatid adeero waa lagaaga fadhiya si aad ogeydeen maalin dhaweyd waa la dilay baa la yidhi waxaa laynoogu sheekeeyey in ay habeenun isaga oo adeeganaya oo sonkor iyo beriis guranaya in ay askari lafti dhaqaaqdaba u diideen haddaba waxaan idiin caddaynayaa wax jira may ahayn wax laynoo samaynayay bay ahayd wixii sidaa u galay baan inaan idiin qeexa aan rabaa runtana ka sheego ninkan yar waxaa dilay gabadhan hadda odhanaysa walaalooy xaamilo 2 bilooda baan ahay baa lagu ogaa in uu la sheekaysto yar iyada la dhalashay kuwa tayar inama la dhashay baa ku ogaaday qamar waxay u soo gashadeen huudhayrkii waddankii weedinka garanaya tuute ciidan bay iskaga soo dhigeen dhar ciidan bay u soo gashadeen istaaggay ka rideen qamar dee waa nin la dilay oo la garanayo laakiin se maxaad samaysaa buu yidhi saldhig may geynina guri iyaga ay saldhig ahaan ugu samaysteen bay geeyeen meel baranda ah dhiig iyo dhaawac ay ka soo qaadeen wayna la dardaarmeen waxayna ku yidhaahdeen war yartayada haddaan kugu aragno intani waxa weeyeen waa digniin hanu indhaha ku yar cascasaynay laakiin maalinta dambe naftaanu kaa qaadayna qamar kuma soo noqon karo dadkii uu adeegayo sonkorta u iibinayay isagoo indhacascas maxaad samaysaa buu yidhi wax xal kaloo kuu dhow ma jiro laakiin waa inaad tiraahdaa ciidan baa i dilay istaaggaa layga dilay meesha sharci baa ka jira adduunka cid dishaa ma jirto cid inta aayar saldhig la geeyay indhaha la madoobeeyaa la iska soo dilaa ma jirto laakiin dadan hallow iyo wax miidhiyaha iyo dadka lagu dherer halaabinaya bay ahayd inantii sheekadiisay u socotaba udhuudhuumasho xaamilay noqoto uurkaasaa ku soo baxay isagii hadda waa baxsi waxa uu ku maqan yahay boorama iyo jigjigu u dhexeeya xaalkaasaa soo kordhay haddaba halkaasay taagan tahay arrinku waa in aad sida degdega ah waxaan aad uga soo jawaabtaa qabarow noqon mayso in maalinba inan yaroo heli laydha luuqa lala galo maanaan dhalaba yaa ku muday oo ma annaga haddaan ka dhalnay
waxaan laydinka aqbali maayo waxaan laydinka aqbali maayo adigaa dhalay reasonkii caddaynta inaad dhalina waa lagaaga baahan yahay halkaasay maraysaa way sii socon doontaa isagaynu jawaab ka sugaynaa hadda odayaal baa ku maqan yartii waa la ogaaday codkaygii waa la gartay dadkoogii baa gartay waa la gartay dadkoogii baa gartay waa laga daba tegay isagii ilaa hadda teleefon ma qabanayo sida lasoo sheegayo taladaa ku ciirtay yartiisii hinaasay bes tahay haddaba halkaad naga daawanaysaan waa halkaan ku leenahay youtube-ka ee joof iyo johorad waa suldaankii السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إسقرابتا واللاكتا يا شيرتا انت بحنا لدافنا أنا سلطانكي وقرقار ولا الكاقا تبنها السلام